السلام عليكم. marka ay timaado dhibaatooyinka caafimaad ee dhanka dumarka waxa la xiriiro walaac iyo murugo zaid ah. Caabuqa kaadi mareenka waa mid kamid ah kuwa ugu xun loo yaqaano UTI-ga ama sidoo kale loo yaqaano urinary tract infection-ka. waa wax halis ah marar qaarkoodna haddii dhaqso la arko halis ma noqon karo. waxaa lagu hagaajin karaa wareeg degdeg ah oo antibiotic ah, laakiin in aad mid haysato ama ay kugu dhaco ama lagugu sheego UTI-ga waa maaragtay nasiib daro. waxaa la xiriiro xanuun, raaxo la'aan, dhabar xanuun, kaadi gubasho, miisaska dhankaasi hoose oo ku xanuuno. qof kasto xanuunkani wuu qaadi karaa oo loo yaqaano UTI-ga, gaar ahaan haddii aad tahay qof dumar oo sexually active ah ama waqtigii ku jirto. marka aad sexually active aad tahayna bacteriahani ama UTI-gani cirka buu isku shareerayaa. haddaba videogani waxaan inkula wadaagayaa 5 xaqiiqo oo ku saabsan UTI-ga oo aad u baahan tahay in aad ogaato. shayga koowaad waxaa waayo dumarka aad ayay ugu badan yihiin ama aad buu ugu badan yahay UTI-ga haddii loo barbar dhigo dhanka ragga. sababtu waa maxay marka? midani waa in aad maaragtay ilaahay wuxuu hagaajiyey ama gabadhana si gaar buu u hagaajiyey dumarka maaragtay ninka raggana xubinta taranka gaar bay tahay. marka maadaama ay xubinta taranka iyo saxara galeenka labadaba aad ugu dhow yihiin kaadi mareenka, waxa ay sahlaysaa in bacteriaha kasoo tago dhanka saxara galeenka oo u soo guuro dhanka kaadi mareenka ama xubinta taranka dhankiisa inuu soo gudbo. dumarka sidoo kale waxa ay leeyihiin kaadi mareenka ama kaadi mareenka dumarka wuu ka gaaban yahay kan ragga. marka bacteriadu waxay leedahay ama waxay masafo u soo galaysaa dhankaas iyo kor oo dhanka kaadi galeenka ah. qiyaastii 10 kamid ah 25 haween ayaa lagu sheegaa maaragtay in ay calaamadaha UTI-ga inay noloshooda ay ku arki doonaan. marka loo barbar dhigo 3 kaliya 25 rag ah sida ay sheegtay maaragtay ururka loo yaqaano urology, American Urology loo yaqaano. shayga labaad oo aad sameyn kartid, xaqiiqda labaad oo in aad ka ogaatid loo baahan yahay waxa waaye galmadu waa mid kamid ah sababaha ugu weyn ee UTI-ga ama infection-kani. bacteriada sababta ama sababa UTI-da intooda badan ayaa loo yaqaanaa E. coli. waxay ka timaadaa mandhicirada bacteriadani, markaasna waxay soo gashaa ama ay soo gaartaa saxara galeenka, taasi ay soo raacayso saxaradaada. inta lagu jiro marka galmada, dhammaan xoqidda, dhaqdhaqaaqa xibnaha iyo taabashada xibnaha inta galmada lagu jiro waxa ay si fudud ugu gudbin karaan bacteriada dhinaca hore. bacteriadani waxay marka u dhaqaaqaysaa kaadi mareenka, taasi oo maaragtay sii koraysa ilaa iyo maaragtay kaadi mareenka ilaa iyo kaadi haysta sii gaarayso. tani waa sababaha looga sheego ama lagu wacyigeliyo gabdhaha waqtiga ee galmada ay ka baxaan ama usutaga ayada iyo ninkeeda ay dhamaato ama ay maaragtay soo hooshi ay soo dhamaato waa inay suuliga aado, ay suuliga isticmaasho oo kaadi ay u aado. tani waxay ka caawinaysaa marka bacteriadii ka imaaday dhanka kale inay kaadadii haddii dhanka kaadada ay gaartay ay soo saarto banaanka ay u soo saarto. shayga saddexaad waxaa waayo xeerka dahabka ah ee ka hortaga UTI-ga. sidiis waxaa waaye haddii aad qof dumar ah tahay had iyo jeer waxaa laga rabaa inaad ka bilowdid haddii aad masaxanayso ama aad meeranayso oo dhanka hoose aad saxara aad suuliga aad u aaday, waxaa laga rabaa in aad hor aad ka bilowdid oo dhanka gadaala aad u aadid. waxaan rajaynayaa in aad habkani aad garanaysid haddii aad maaragtay gabar aad tahay. gadaal iyo hor haddaad kasoo bilowdid marka waxa dhacaya waxaa waaye haddii aad gadaal aad kasoo bilowdid oo dhanka hore aad usoo dhacdid waxaad fududaynaysaa
bacteriadii in uu dhankaasi uu kasoo tago oo dhanka hoose uu yimaado, taasina waxay riskiga ayay ku badinaysaa inuu infection kugu dhaco. Ama shayga afraad aad ku garani kartid ama xaqiiqda ah ayaa calaamadaha ugu cadcad ee UTI-ga waa rabitaanka kaadida joogtada ah iyo dareen gubasho oo xanuun leh markasto aad kaadi aad aadid. Calaamadaha kale waxaa kamid ah ama waxaa kamid noqon kara xanuun oo dhanka miskaha ah, in aad awoodo in aad maaragtay waqti walba ama mar walba kaadadaadi ay badato, kaadadaadi marar qaarkood in lagu sheego dhiig ama in lagu arko kaadadaadi dhiig. Ugu dambeyntii shayga shanaad ayaa ah UTI-ga aad ayay maaragtay khatar badan u yihiin xilliga uurka. Isbedelada jirka ka dhaca ee xilliga uurka waxay mararka qaarkood keeni karaan UTI-ga haddii aan la daaweynin. Waxay u horseedi karaan marka khatar oo maaragtay dhanka keliyaha oo keeni kara caabuqa keliyaha, kaasi oo noqon kara mid aad u daran xilliga uurka. Marka waa in la baaro dhammaan haweenka uurka leh. Haddii haweeneydu uurka leh lagu sheego marka in ay UTI ay leedahay ama caabuqani lagu sheego loo yaqaano urinary tract infection ka loo yaqaano, waxa uu dhakhtarku ku qasban yahay in uu gabadhani oo daawo antibiotic uu siiyo ama waxaad qaadan kartaa daaweyn antibiotic ah. Asxaabay, waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadka barnaamijka. waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo. hana ilaawina subscribe, like, share iyo intaasi in ka badan. waa inoo mar kale iyo barnaamij